waxaan leeyahay beelaha walaalaha iyaga baaqay jamhuuriyadda Soomaaliland u direen ka madaxweyne weyn ahaan waanu ajiibnay dalkuna isbedel buu dhaqaaqay Soomaaliland maanta meel kastuu joogo dalka iyo dibadda waxa la isku raacsan yahay xusbiga wadani shimbirihiina waxay ku dhawaaqayaan wadani ahyaa wadani weey kuna warbaahineedkan ay ku qabteen hoteelka Aldoor ee magaalada Boorama madax dhaqameedka waxgaradkii siyaasiyiinta beelaha madaxweyne ayaa waxa ay taageereen go'aankii ay soo saareen mid ka mid ah beelaha Somaliland madax dhaqameedka iyo waxgaradkan oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayeen waxa hadalladooda u dhignaayeen sidaan maanta waa maalin weyn waa maalin jamhuuriyadda Somaliland dabaylaha duufaano waaweyn ka kaceen halka waxaan ka hadlayaa socdaalkii musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ay ku mareen gobolada galbeedka ee loo bixiyay walaaleeye ee ka bilowday caasimadan maanta aan joognay Boorame ee ku soo ilaaday waxa weeyaan bari go'aamadii ka soo baxay socdaalka guushiisa reer wadalba iska lahaa hadduu maanta ku soo ilaaday magaaladii Ceelaf Weyn oo go'aamo waaweyn ka soo baxeen oo beelihii Garxajis iyo Habar Jeclo ay heshiis weyn ku gaadheen oo heshiiskaas oo dhalay inay dhisaan musharaxiinta xisbiga wadani hambaliyaan leenahay hambaliyo waxaan leeyahay beelaha walaalaha iyaga baaqay jamhuuriyadda Soomaaliland u direen ka madaxweyne weyn ahaan waanu ajiibnay dalkuna isbedel buu dhaqaaqay waxaanu leenahay baaqa Soomaaliland oo dhan way ajiibaysaa insha Allah taala saasay hawlu ku dhamaanayaan saas isbedelku ku soconaya waan hambaliyeen saakalkan joognaa go'aanka aad iyo aad baan u hambaliyeenaynaa kulay beelaha Soomaaliland oo dhan way ka hadlayaan anagoo ku hadlayna magaciisa madaxweyne magacii Gadabuursi saasaan leenahay wabillahi tawfiiq maanta halkan madasha waxa iskugu yimiday beelweynta madaxweynta Makaahiil oo halkan iskugu timiday arinta ay daaran yihiin iskugu yimaadeen waxa weeyi inay hambaliyeeyaan go'aankii ka soo baxay magaalada qiimaha badan ee ku taala bariga Soomaaliland magaalada Ceelaf Weyn waxaan halkan hambaliye gaar ah u direynaa beesha weyn ee Habar Jeclo ee kamida beelaha ugu waaweyn dalka Soomaaliland beeshaasi waxaan ku xawsan karnaa markii hore arintu ay xiriir gashayna ragga suldaanada muhiimkii waxay ahayn ragga barigii hore la gurmad u galay Soomaaliland inay dhibaato ka dhicin mar labaad madaxweynta waxaan leenahay reerka Habar Jeclo waxaan leenahay hambaliyo wax fiican baad gaadheen ummaduna waa inay yeelataa markii xaaladdu xumaato cid u gurmata marka gurmadkii ummadan ay Soomaaliland ay noqdeen Habar Jeclo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinaynaa nimankaas gaadhay in arintaasi maanta ay xaq u leeyihiin beesha Garxajis waliba gaar ahaan beesha ballaadhina Habar Yoonis iyo guud ahaan xisbiga wadani waana bogaadinayaa guud ahaan iyadoo la isku wada raacay beesha Habar Jeclo xeerka ay raacday waxa weeye beesha Habar Jeclo saan ognahay waxay sameeyeen wax la yiraahdo waxay u qaybsamaan iyagu waxay arkeen in gabi ahaanba reerkani ay haday Samana Abukar yihiin ay haday yihiin Maxamed Abukar iyo haday Muuse Abukar yihiin iyo haday Umar Jibriil yihiinba maanta waxay arkeen xataa xisbi ahaan markay soo dhaweeyeen ninka Cali Barre ee Muuse Abukar halkaasna xeer bay waafaqsanto waa midnimadii Habar Jeclo ay ka dadaaleen midnimadii Habar Jeclo way ku dadaaleen tii Soomaaliland way ku dadaaleen tii ummadda weyn ku dadaaleen taasna waxaan leenahay waa guul markale u soo hoyatay guud ahaan Soomaaliland oo hogaaminaysa beesha Habar Jeclo halkan waxaan ka salaamayaa guddida guud ee beelaha madaxweyne oo halkan isugu timiday inta halkan isugu timiday waa guddidii uun marka waan salaamayaa ujeedada aan isugu nimidnayna waxay ahayd baaqay beelaha Habar Jeclo soo saareen hal faqrad baa kamid ah iyadoo beelaha kalena waxaan doonaynaa inay nagu raacaan beelaha Soomaaliland taasaan ka jawaabaynaa waxaan uga jawaabaynaa inaan ogolaanay baaqa oo sidaa ku raacnay ay soo saareen in maanta wadanku u baahan yahay isbedel saad ay garteen baan la garanay halkan ka bogaadinaynaa oo hambaliyo u direynaa hadal waa murti baa la yiraahdaa habaarro waa dhimo beesha Habar Jeclo haddii ay caynka u jiiday taageerada xisbiga wadani maanta xaggeeda in loo guuro reer guuray lagama hadhay tiraa Soomaalidu reer nagina lagama dul guuraa la yiri geediga maanta isbedel doonka
beesha habar jeclo haddii ay caynka u jiideen oo xalay aan maqlaynay boqor cismaan oo maxamuud buurmadow oo in badan kaga maqnaa dalka dibaddiisa maantana jooga beelweyntii habar jeclo haddii ay isku raacday iyaguna in caynka ay u jiidaan soo saaridda maanta xisbiga dalka badbaadin kara ee la yidhaahdo waddani aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynaynaa go'aanka aad gaadheen annaguna halkaasaan ka mid nahay beeshan waxaa la yidhaha madaxweynta makaahiil makadoor waxaana salaamayaa beeshan weyn allaa weyne ee madaxweynta makaahiil marka xiga waxaan salaamayaa gobolka dhammaan beelaha aan ka soo jeedno ah gadabuursi kabacdi waxaan salaamayaa ummadda jamhuuriyadda somalilan nabadda somalilanna ilaahay baa haya horta ilaahay haynoo dhiso alxamdulilah rabbilcaalamiin midda kale waxaa la yidhi habruhu hadday fooshaan waa laga filaayey socodkii walaaleeye boorama ka bilaabmay ayay taagiidisay maaragtay habar jeclo markaan maaragtay runta marka la yidhaahdo marka qofka talada la keeno tala raac qofka kalena noqduu keeno wuu ku fiican yahay aad baan idinku hambalyeenaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin assalaamu calaykum waraxmat halkan horta waxaannu iskugu nimid goor gaaban hadalkeena gaaban waa salaaddii duhur baa la tukanayaa halkan waxaa idin hambalyaynaynaa beesha habar jeclo ee qaaliga ah ee maanta mustaqbalkii dalka ka talisay ee xalay soo gunaanaday waddani xusbiga waddani u soo guurtay aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa waar dalku wuu dumay Somaliland maanta meel kastuu joogo dalka iyo dibadda waxaa la isku raacsan yahay xusbiga waddani shimbirihiina waxay ku dhawaaqayaan waddani axyaa waddani weeyi maantana waxaad dhigteen rikoodhkii labaad maasha allah ilaahayna waan idin baryaynaa inuu cimrigii iyo caqligaba idin daweeyo salaadiinta halkaa joogta ee dhaqanka ah ee habar jeclo ee ugu weyn yahay suldaan cabdilaahi oo maantaan jiifa suldaan maxamuud guuleed suldaan maxamuud xaaji xuseen suldaan siciid iyo inta kale badan inaan magacaaga halka ka wada sheegay wixii horeed qabateen iyo taad maanta qabateenba waanu idinku ducayna waana la idinku taageeray maaha taageero aad naga baryaysaan waa midad kasbateen waa badbaadada dalka waan idinku taageersanay waxaad qabtiin baa qabnaa horeyba halkan dee hilaaca awdal baa ka bilaabmay oy madaxweyne hogaaminaysay kow ka ahayd oy ku bilaabantay marka hore su'aal weeye in la saxo jawaabteeda awdal bay ka bilaabantay wayna saxmaysaa haddii la sixi waayana waddani baa saxaya anu kolley qabiil ma doortee waxaan dooranaynaa madaxweyne qaran kii dalka midayn lahaa baan rabnaa cabdirasaaq cumar macdowliyo telefishinka CBA Boorama